madaxan kusoo dhawow v-o-da aad baan waqtigaa kaaga mahad celinayna. waad mahadsantihiin. waa tahay waxaan doonaya inaan laba saddex su-aalood kaa weydiino bal xaaladda abaaraha dalka ka taagan maxaad ku tilmaami kartaa abaarta heerkeeda? bismillahi raxmaan raxiim. runtii aad iyo aad baad mahadsan tahay. mar daydhaa kusoo aragtay xaaladda dalka jirta. abaarta runtii way soo noqotay sanadahani. saad la socoto sanadkii 2016 horaantiisii waa tii abaar aad u adag dhacday oo culayska u badan ku dhacay gobolada galbeedka, iyadoo tii aan runtii laga soo waaqsan ama laga soo doogsan ayaa roobabka guuna runtii aad iyo aad u yaraadeen. xoogaa galbeedka wuu qaboobay. waxaa dhacday markaa roobabka guuna ku yaraadeen gobolada bariga, afarta gobol ee bariga, sool, sanaag, togdheer iyo saaxil. taasi waa ta keentay markaa roobabkii guwa la waayey inay abaartu maanta ugu daran tahay, iyadoo guud ahaan culays ku jira Somaliland guud ahaan haysto, haddana gaar ahaan afarta gobol ee bariga abaarta ugu adag haysato. runtii waxaan odhan karaa waa abaartii ugu adkeeda intaa yani muddada aan garan karayno marka laga yimaado abaar daba dheer. abaartii ugu adkeeda dalka soo marta wayaan runtii Somaliland ahaan soo martay. marka haddii sanadkii 2016 bilowgiisii ay abaartu dhinacan galbeedka ku dhufatay adkayd, dadka idin dhaliilaya waxay leeyihiin maydaan tabaabushaysan oo tabaabushkiina iyo diyaargarowgiinu aad buu u liitay, taasna waxay keentay in abaartan kalena idinku sii darsanto dhinaca bari ku dhufato. runtii waa dhaliishu iska kolley mar walba bini'aadamku hawl kasta la qabto waa la dhaliilaa, laakiin dadaal runtii aad badan baan samaynay intii taalkayaga ah. tabaabashahana runtii waxay ku xidhan tahay iyo diyaargarowgu qofku imkaaniyaadka u haysto iyo dhaqaalaha haysta ku xidhan tahay iyo technicality-ga. runtii dee dowladda aad unagu waxnay dowladda curdina oo caalamka mucaawano badan ka helin, laakiinse inay taalkayga mar kastaba waan ku dadaalay oo markii ay soo muuqatay faalihii koowaad ee soo bishii October qaydada tibidaba aad iyo aad baan runtii uga gaashaanay. markiiba waxaan mobilize karanay dadweynaha, baan mobilize karanay dowladda. dadweynaha waxay sugayaan markiiba lacag degdega oo ilaa 2 milyan iyo jarjar gaadhaysa si loo inta qayladu ay qayladu cidkeen inta baaqa la diray ay garaysa hay'adaha assessment-kooda iyo nidaamkooda iyo maartay waqtiga qaataan. waxaan degdeg u sameynaa markiiba inaan ka gaadhno inaan dadkii aan gaadhsiino maartay cunto iyo biyo runtii. oo marka hore cuntada ay daruuri ahayd oo cuntada aad loogu baahnaa, iyadoo aan wax yar oo maartay mucaawino aan haynay oo ahaa deeq ka timid dowladda Turkiga runtii waqtigaasi iyaan isu geynay tii aan ka helnay Turkiga iyo mobilisation-ka sameynay dadka iyo dadweynaha iyo dowladda mar walba iska kaashada maadaama aan isku tashano mar walba. marka khasaare ahaan imisa aad haysaan hadday noqon lahayd abaartu oo ay galaafatay dhinaca xoolihii noolaa dalkan ku tiirsanaa iyo weliba khasaare nafeed hadday jirto maxaad nala wadaagi kartaa? runtii iyadoo hayn imkaaniyaad aynu meel walba oo tuulo iyo degmo kastaba aynan maartay meel lagu gareeyo aan lahaynoo la odhan karin intaas oo tiradaasaan dhimatay, laakiinse qiyaasta marka la isku celceliyo xoolihii Somaliland gaar ahaan gobolada bariga waxaa lagu qiyaasaa in 60% ay dadka xooluhu ka baxeen. dadkuna markay abaartii ay aad u adkaatay laba qaybood u kala jabeen, qayb galbeed u soo hayaantay iyo qayb xagga Puntland u hayaantay. khasaaraha naftu dadku runtii aad buu yar yahay, tiro badanoo maaha. waxa 10 ka yar baa la odhan karaa meelo kala duwan ku dhintay sababtoo ah gurmadka xagga cuntada markaaba dadka waan gaarsiinay. runtii markii horeysay qaylo soo qaylantayba laga bilaabo bishii November ilaa maanta bishii saddexaad dhamaatay mar walba bil walba waxaan loo helo yaa la gaarsiinay runtii. oo marka khasaaraha 10 baa ku sheegay wax 10 ka yar waa dowladda la kulanay gudoomiyaasha gobolada lambarka aad bay uga badanayaan intaa. xitaa saraakiisha caafimaadka ku soo aragnay goobaha kala duwan ee soo booqanay tirada way badinayaan. marka ma laydin odhan karaa waad dayalsanaysaan ama waad qarinaysaan dhibaatada abaarta ay gaarsiisanta? maytaam lama odhan karo sababtoo ama qarinoo aad waanu qaylinay beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibadanahay iyo dadkayga intaba waanu qaylinay. waxaa tirada intaa wax ka badin karaya waa qaybta markaa carruurta oo kale oo shubanku inta badan uu yimaado. shubankuna mararka qaarkood marna nafaqa darrada ayuu ku imanaya abaartu keentay, marna si caadi u dhacayo marna abaarba jirinba dee uu dhici karaa shubanku maartay uu dhimasho keeno. marka shubanka lagu daro carruurta lagu daro
way iman kartaa laakiin gaajada caadiga wax yani u dhintay baa qiyaas ilaahay wax tobanay qof muddo kara laakiin carruurta marka la yidhaahdo dee shubanka oo nafaqa darrada qudhida loo odhan karo loo sibir saari karo dee loo sibir saari karo abaarta iyada qudhida way keeni kartaa in inta ka bayso dhimashada iminka waqtigan aan kula hadlayno heerka abaarta ma odhan kartaa aad bay u daran tahay oo dalku wuxuu ku dhow yahay in looga dhawaaqo xaalad degdega oo la odhan karo macluul baa imanaysa waddanku ma ku dhow yahay heerka ma la gaadhsanay heer waddanku faamin lagu dhawaaqi karo uu ku dhow yahay sismika anagu samaynay iyo hay-adaha caalamiga intaba dareenka gobollada bariga maanta uu ku dhow yahay in fiiman lagu dhawaaqo sababta ah dee hadda gugan ku jirnaa maantana wali waa sidii ummaddii culayska uu sii saaran yahay biyo la-aantii way sii haysataa cunto la-aantii way sii haysataa xoolihii way kasii dhimanayaan marka intii u baxday maanta laga yaaba in gobollada galbeedka timaday oo roobkii yara hordhicina uu helay marka laga reebo inta deegaanadii joogtay khatar badan bay runta ku sugan tahay taana waa la ogyahay wax la qariyey maaha annaga iyo hay-adaha caalamiga inta way sheegeen in maarata ay ku dhow maarata stagekii fiimanka ay ku dhow yihiin maxaad marka looga hortegi karaa idinku tallaabood qaadeen inaan lagu dhawaaqin in dalka macluul ay ka jirto iyadoo lagu dhawaaqiyo dhawaaq lahaanba kulli ma fadhino oo yani guddi ahaan ka dowlad ahaan iyo shicib ahaanba runtii hawlada baan ku jirnaa habeenii dhaarba waxaan ka shaqeynaa sida dadka biyo loo gaadhsiin lahayn cunto loo gaadhsiin lahayn wixii caafimaad loo helo looga shaqeyn lahaa intaa waxna barbar socda hay-adii caalamigii oo runtii marka hore dib u dhac ku yimiday laakiinse imika marka dambeysa imika qayladoodii ama dhaqaalihii ay sugayeen imika soo gaadhay marka waxaad moodaa imika dadinay ka inta badan anagu maadaama culayskii xagga hore ka qaadanay dowlad ahaan inay hay-aduhu imika ka fargaraynayaan xagga cuntada iyo biyaha iyo caafimaadkaba inay hay-adu ka fargaraynayaan baa ka muuqata dee wad la socota qaylada guud ahaan geeska afrika oo dhan haysta ma ka mid nahay dadkan la soo kulanay xoolo dhaqatada waxay noo sheegayaan oo ilaa bariga sool sanaag togdheer intuba dadka xoolo dhaqatada miyiga kula kulma waxay sheegayaan waxba soo gaadhin idinka dowladdiidana waxaa leeyihin dadkii waxbaa loo gaadhsiinay marka waxaan doonaya bal inaad noo sheegto halkii wax iska qabanayeen anu ma qabo runtii dadku ay odhanayaan waxba loo soo gaadhin laakiinse biniaadam baa roobka ilaahay dee da-ya meelo seega u jira dhulkuna uu xoog badan yahay dhulku ballaaran yahay meel asee kale way jirtaa laakiinse cuntadu inay wakti walba way socotaa hadal hayn badan baa jiraan oo ku aadan qaabka lacagaha xitaa loo maareynayo guddiga abaarahada madaxda wasiir baanu shalay la hadlaynay ilaa 4 milyan iyo googo waan ururinuu yidhi oo 2 milyan dowladda nooga timid dadku waxay dhalinayaan qaabka wax loo wado waxaa la leeyahay musuq maasuq baa jira maxaad eedahaasi la soo jeedinaya uga jawaabi lahay horta musuq maasuq ma jiro waxaan gacanta ku haynaa wuxuu yar yahayba sidaan u gaadhsiin lahayn baaba culays iyo dhibaato nagu ah marka wax meel gaara ka maraa ma jiro saa lagu sheegay dowladdu sanadkii horena oo dabayaaqaahid oo barjku sii dhamaanay milyan bay bixisay imikana milyan bay bixisay wixii kale maaragtay awooddeedana waan diyaar baan u nahay waxa musuq la'aana ma jira saacad walba wixii kolba intaan gacanta ku hayno iyo intay gaari karto ma ku xisaabtanaa yani weygii anigoo madaxweyne qaranka u guddoomiyaa waan la socdaa tallaab la socdaa dadka tuhumnu bay qabaan soomaalida ninka dibadda jooga ama hawl kasoo la hayo dareenkeeda iyo tuhunkeeda iska leedahay laakiinse anigoo guddoomiyihii waan sheegnaa oo xisaab xidh baan sheegnaa waxaa kale la soo joogsanaa waxaa la sheegaa lacagta intana soo gashay inta baxday marka lacagta dadku ay wax weyn u haystaan culayska nasaara baa ka fara badan lacag meel wada khaldan maraysaay ma jirto abaartan maxaa idinka dowlad ahaan istaraatiijiyadinka waayo abaartii waa soo noqonaysa maalin roob baa daaya dadkii dalkii oo dhan buu daad qaadaya maxay tahay istaraatiijiyada idin taala horta waxaan waa afa caama waxaan abaartani oo waa tani dee adduunyada horumartay ama cilmi saynisyahanadu ay sheegeen isbeddel cimilada adduunyada ka dhacay isbeddelkii cimiladuna wuxuu keenay inuu roobabkii iyo qaabkii iyo ku talagalkoodinu isbedelay marka runtii taasina waxay u baahan tahay dhaqaale aada u xoogan bay u baahan tahay sidii loo maareyn lahaa ama loogu maaragtay dee loo sameyn lahaa abaarta soo noqonaysa mada loo gaashaaman lahaa ama biyo loo qaban lahaa marka runtii arrintaas waa qorshaha dheer hawsheeda oo ku jirnaa oo iyadoo aan la kaashan hay'adaha la kaashanayno midna waa qorshahan dhowada imika culayskan iyo emergency-gan na saaran weeyaan waxaad tiri xaaladda dalka iyo abaarta siday ku sugantahay waxaa idinkii hay-adaha qaramada midoobay iyo gargaarkuba aad imika isla ogtihiin
in xaaladdu daran tahay ay dhici karta in lagu dhawaaqo in dalka macluul ka jirto haddii taasi dhacdo siday dowlad ahaan idin saameynaysa saameynta abuuraysa intuu leeyahay ka dowlad ahaan ka dhaqaal ahaan iyo ka amni ahaanba runtii aad iyo aad bay noo saameynaysaa dowlad yar baan nahay oo horseedooskooda yar yahay iminka maanta iminka saacaddan ku hadlay anagu ku tala gashan culayskaa jira ama baqahaa jira ama inay abaartu si xumaato budgetkayga waan kontroolay waxaan u kontroolay dee mar haddii dhimasha ay laga baqayan dhimasha dhacdo inaan dee aan wax dhisno wixii difloomad ahaa oo dhan waan joojinay sababtaa miisaaniyadeedii laba arrimood baa ku dhacday waa midoo abaartii saameyn ba nagu leedaho ku talagalkii miisaaniyadda waxaan ka baqaynaa inuu dhidmo waa midda labaadoo xoolihii wadala socotayo geeska afrika wadana waa la yar joojiyey xoolaha qudhoodina qaybtii dee dakhligoodii way la maqan yihiin iyadoo labadaas jiraan culaysba jiraan oo aan ka baqaynay ku talagalkayga dhidmo haddana waxaan dib u dhiganay oo joojinay waxa wixii mashaariic horumar ahaa inaan dib u dhigano si aan maaragtay haddii ay dhibaatada timaado dee emergency-gaas yimaado lacagtaan ugu talagalnay inaan horumar ku sameyno aan ku badbaadina nafaadka percentage waa imisa arrimaha mashaariicda lagu talagashay la hakiseen qiimaha lacag ahaan oo cadad ahaan waa imisa imika maanta kuma odhan kara percentage miisaaniyadda ka yihiin laakiinse miisaaniyadda way ku jiraan marka taasaa keentay inaan waxaan u hakinay in maaragtay haddii ay dee dhibaatada sii adkaato oo sidaa imika arrinta barigu sii xumaato ama oo dee macruusha la galo in markaa dee halkii aan development ka samayn lahayn dee ku badbaadino nafahadda ku badbaadino yaa noo qorshaysan amniga siday idin saameynaysa haddii xaaladda abaartu ka darto oo ay gaadho macluul security threat ma jirta taa ma qabo dhibaato amni caynkaasa ma keenayso ma qabo laakiinse arrinta ugu weyn ay naftu saameynaysa waa dhaqaalaha iyaga aad u saameynaysa abaartu aad baan u mahadsantahay السلام عليكم.